saynu soo sheegnay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu la galay heshiis nimanka quraysh ah oo sheegayay muddo 10 sanadooda inuu dagaalku joogsado. waxaa kaloo quraysh heshiisyada lala galay ka mid ahaa in qolo walba oo qabaa'ilka kale carbeeda ciddii taraf ama kooxaha ka mida heshiiskaasi la gasha inuu soconayo. waxaynu kaloo soo tilmaamnay in nimanka bani bakar la yidhaahda iyo nimanka khusaaca la yidhahdo laba qabiiloo ishayay ahaa inay heshiiska ka galeen labada dhinaca kale. qolana nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay la gashay khusaaca, qolana ay raacday quraysh oo quraysh la gashay. halkan waxaa dhacay markaas oo ghazwada sababteedu waxay ahayd bay yidhahdaan culamada taariikhdu sida ibnu kasiir عن طريق ابن اسحاق وكسر سند لليه وحسن لذاته. waxaa lagu tilmaamaa in nimanka la yidhaahdo quraysh ayaa buriyey cahdigii iyo reer banu bakar marka la isku daro. sababtuna waxay ahayd baa lagu tilmaamaa bani bakar iyo khusaaca isdilay. horta waxaa ka dhexayn jiray taraad hore qabalihi, yani laba qabiiloo dagaalo badan hore usoo dhex mareen ayay ahaayeen oo aanooyin hore ay jiraan. dabeetana nimankii reer bani bakar baa maalin maalmaha kamid a waxay idhaahdeen wallahi nimankii khusaaca waa cidnaynu ka helayna aan weerar ku qaadno. goor habeenimaha bay weerar kusoo qaadeen baa la yidhaahdaa oo ceel la yidhaahdo alwatiir oo ay nimankani ka cabayeen lagu weeraray ilaa iyo laga soo saaray meeshii ay deganaayeen ama ceelkii laga soo bixiyey oo la soo eriyaday oo maka la soo geliyey. waxaa la yidhaahdaa qurayshi rag iyo hub iyo fardamo way ku taageertay qabiilkii reer bani bakar ah. hoostay ka siiyeen baa la yidhaahdaa hub badan iyo rag iyo waxaasi oo dhan. walidalik ayaa waxaa dhacay qadiyadaasi markay dhacday ee khusaaca waxay soo qabteen nabiga calayhi salaatu wasalaam. nin bay soo direen camar ibnu salim alkhusaaciyi nin la yidhahdo ayaa madiine loo soo diray. ninkaasi nabiga calayhi salaatu wasalaam buu u yimid. waxay culamaai taariikh sheegaan gabay buu ka hor bilaabay nabiga markaasi uu leeya ya rabbi inii naashidun muxamada xilfana waxilfa abihi latlada qad kuntum wuldan wakuna waalida uma taaslamna walam nanzic yada. gabay buu tirinaya uu leeya ilaahayow waxaan maanta yani munaashada ku samaynaya wax ka codsanaya muxamed, waxaanan kaga codsanaya heshiiskii annaga iyo isaga aabihiiba noo dhexeeyey oo waataynu reer banu hashim iyo marka horeba heshiis kasii dhexeeya jira khusaaca. idinku waxa ahaydeen buu leeya wuldan caruur ba ahaydeen wakuna waalida anana qoladaydan dhashay baan nahay. oo waxaa la yidhahdaa khusaaca islaana baa dhashay baa la yidhahdaa umu cabdimunaaf ahayd baa la yidhahdaa. yani islaana khusaaciyada qabiilkaa ka dhalatay ayuu qabi jiray qusay. gabay buu soo tiriyey markaasi uu leeyahy sidii baanu weli heshiiskii ugu jiraa oo weliba intaa islaamnimana noo dheerto aanu islaamnay buu leeyahay oo wax kaloo haba yaraatee dhibi ma dhicin. waxaa la yidhahdaa gabaygan markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ka hor tiriyey gabaygu waa gabay kaga waramayo in la weeraray, in dhib loo geystay, inay heshiiskii ay qolada kala buriyeen, inay xilfi wadaag ahaayeen, inuu doonayo in loo gargaaro. gabaygu nooca u tirinaya ninkani weeyaan. ninkani gabaygiisii markuu dhameeyey baa la yidhaahdaa ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ba la yidhi nusirt ya camar ibnu salim, laguu gargaar buu ku yidhi ba la yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam camar ibnu salimow. ibnu isxaaqna wuxuu sheegaya nimanka sidii loo laayay in meeshoodii o dhan inta laga soo saaray xaramka la soo gelay oo xataa xaramka lagula dagaalamay, inkastoo biduuni sanad uu qisada qaybtan dambe ku aroorinayo. waaqidi oo aan naf badan ku lahayn xagga riwaayadda wuxuu sheegaya 20 in laga dilay nimankaasi. musa bnu cuqba oo isna kamid ah rijaalu taariikhda magaazigii islaamiga ragga qore wuxuu leeyahay zucamaa quraysh bay ahaayeen buu leeyahy raggii taageerayey oo safwan ibnu umaya iyo shayba ibnu cusmaan iyo suhayl ibnu camar iyo raggaasaa taageerada soo siiyey. waxaanay ku taageereen buu leeyahay hub iyo adoomo la dagaal gala ayuu isna sheegaya musa bnu cuqbana biduuni sanad buu kusoo aroorinaya. cala kulli xaal sanadka xasankee hore wuxuu sheegayaa inuu ninkaasi nebiga ka dalbaday gargaar isagoo sheegaya dhibtaasi inay ku dhacday. dabeetana uu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa laguu gargaaraya. waxaana meesha ka cad
quraysh dhacdadan ay samaysay inuu yahay burin ay burisay mucaahadadii iyaga iyo nebiga heshiiskii udhexeeyey oo xadgudub ay ku xadgudbeen nebigu calayhi salaatu wasalaam dad xilfi wadaag la lahaa. riwaayaadka qaarkood oo ibnu xajar uu soo aroorinayo uu leeyahy waa mursal isnaadkiisu saxiix iyo ilaa iyo moxamed ibnu cabaad ibnu jacfar oo loo nisbaynayo irsaalka. waxa uu ku tilmaamaya uu leeyahay mursalkaa sanadka saxiixa wata waxay riwaayaadka qaarkood sheegayeen baa lagu tilmaamaya quraysh xataa inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam cid usoo diray uu kala dooransiinayo nimanka ay laayeen diyadoodii inay bixinayaan iyo inay bani bakr xilfigoodii inay beri ka noqonayaan iyo inay dagaal doortaan. yani 3 shay lasoo kala dooransiinayo, inay diyadii bixiyaan, inay nimankaa kaxayaan oo bani bakr iyo dadka kale laisu daynayo ay xilfigaasi taas kaga baxayaan, iyo inay dagaal doortaan in lasoo dooransiiyo. waxaa la yidhaahdaa say riwaayaadkaasi sheegayaan waxay dooratay quraysh qitaalka ama dagaalka, laakiin haddana muddo markay joogtay baa la yidhahdaa waa ka warwareegeen oo waxay dhahdeen wallahi waa arrin qaldan oo xataa waxaa la sheegay in abu sufyaan ay u direen inuu bal dhexdhexaadin sameeyo. abu sufyaan inay magaalada madiine usoo direen oo uu madiine yimi oo isku dayay cahdigii inuu dib usoo cusboonaysiiyo oo mucaahadadii mar labaad la sameeyo, laakiin mucaahadada iyo kudaygaa dambe abu sufyaan ciidina kama dhegaysanin. war buu sheegay siday culamada taarikh warinayaan, laakiin ciidina kama hoos qaadin, sidiiba abu sufyaan kaga soo noqday. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu faray ciidankiisii markaasi in dagaal loo diyaar garoobo. waxay culamada taarikh sheegayaan sida xadiidka ibn isxaaq uu soo aroorinaya sanadka saxiixa umanu sheegin meeshuu nebigu u duuli doono, laakiin ciidanku ha diyaar garoobo baa la yidhi waa la soconaya. waxaanu rabay baa la yidhaha nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu duulo iyadoo aanay qurayshi ka warhelin, ila iyagaa buriyey heshiiskii war la-aan iyadoo qurayshi ku sugan tahay inuu duulimaadkan qaado. weliba wuxuu u yeedhay nebigu calayhi salaatu wasalaam qabaa'ilkii aagta joogay ayay ku tilmaamaan, siday ahlu taariikhu ay soo warinayaan, inkastoo axaadiis badan oo baabka ku saabsani aanu sanadkeedu xoog badnayn. waxaa la yidhahdaa waxaa ka qayb galay ama bilaa sanad bay iska yihiin qaar badani aslam iyo khifaar iyo musayna iyo juhayna asja sulaym, qabaa'ilkaasoo dhan cid baa kasoo gashay baa la ydhaha. qabaa'ilka qaarna madiine intii u joogay bay soo gaadheen ba la ydhahaa, qaarna ariiqa ayay ku soo gaadheen. ibnu sacad tabaqaadkiisa wuxuu ku sheegaya xadiis aan sanad wadanin inuu ciidanku gaadhaya ilaa 10,000 oo askari, 10,000 ciidan gaadhaya. waxaa la tilmaama ibnu isxaaq sanad xasan lidati isagu wuxuu ku sheegaya nebiga calayhi salaatu wasalaam inay soo raaceen ansaarta iyo muhaajiriintu aan cidi ka hadhin iyaga, yani inay aada u badnaayeen. marxalada tan waxaad ka garan kartaa ciidamada tani siday usoo baxeen. ciidamadani siday usoo urureen waxaa kaaga filan in la yidhaahdo 10,000 oo askari baa soo dagaal galay, iyadoo inu ogeyn dagaaladii hore uu nebigu gelaya calayhi salaatu wasalaam ciidanku wadan jiray intuu leekaa. waxay tilmaamaysaa 2 sanadood ama 2 sano ku dhawaadkii sanadii waxoogaa buu ahaayeen nabadgelyadu jirtay siduu islaamku u faafay, iyo waktiga nabadgelyadu jirto inuu islaamku ugu faafis badan yahay oo dadku ay si fiican qof caqli loo diintan loo sharxay inaanu jiraynin ilaa inuu soo gelayo mooyaane. nebigu calayhi salaatu wasalaam saasuu damcay baa la yidhi inuu kusoo baxo. dhexda markii lasoo socdo ayaa waxaa dhacday ninkii la odhan jiray xaatib ibn abi baltaca. xaatib waa saxaabi bederiya, ragii beder ka qayb galay buu kamid yahi, ayaa waraaq qoray. waraaqdaasi quraysh buu ugu waramaya in nebigu kusoo socdo oo lagu soo duulayo. dabeetana wuxuu u dhiibay gabadh islaan buu yihi qaad oo waraaqdaa nimankii quraysheed uge oo warkaa hala gaadhsiiye. ilaahay baa usoo waxyooday nebiga calayhi salaatu wasalaam oo u sheegay warkiisii in gabadh loo dhiibay. dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diray baa la yidhaahdaa sida xadiiska saxiixi uu tilmaamayo 2 nin ama 3 nin, saxiixeynka qisada ku sugantahe. 3 nin buu diray nebigu. 3da nin waxaa lagu tilmaamaa caliy ibn ali, zubayr ibn alcawaam iyo miqdaad ibn aswad alkandi ama miqdaad ibn camr alkandi. 3daasi saxaabi ayuu nebigu diray calayhi salaatu wasalaam oo la yidhi fardihiina kaxaysto ka daba taga
meesha khaaq la yidhaahda buu nabigu yidhi markaa maraysaan islaam baa ku gaari doontaan islaanta qabta qofkaa dumara qabta oo waraaqda sida ka soo qaada saddexdii saxaabe fardoolayda waa soo yaaceen markay rawdatu khaaq marayeen waa meel 12 mayl meelaha u jirta madiine markay marayeen ayay si qabteen islaantii waxaa la yidhi keen way warwareysta waxba ma sida iyo kan iyo hadal bay keentay way hadideen markaas waxay idhaahdeen laba mid inaad soo saarto iyo inaanu marada kaa dhigna bay idhahdeen cali baa waxaa laga sheegaa inuu lahaa axlifu billahi ma kadaba rasuulu llahi walaa kadabna ilaahay baan ku dheeranaya inaanu nebi maxamedna been sheegin annana inaanan been sheegayn ee wallahi latukrijana alkitaaba aw lanujuridanak ilaahay baan ku dhaartay kitaabka qoraalka soo saartee ama marada kaa dhigay